أولاً إلهي ما هنقينا اسموكي كان حفلة قيمة يقايها بدن ما تكوها إنه أرنت خيرجا بارك الله عن سلام يا مدحض الدقن كا وجوه ريو قراد عبد الله قراد سليمان عقاشة المولودية مدحض جامعة ألف يونيفرسيتي هديت هاي الدنيا جودة جامعة يتيم كيسة يهديت هاي ماموركا يتيم كا فرع مقاولة سعانود وحي كتشوف وساردها وظهري سدوها وساردها ورمنتها عافماتك قدومي كحيجينك وحبرشدا حلبانا وقراها ديجانك هبلها دمانتين دليرada waxaan bahda saxaafada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam hadalku wuxuu ku leeyahay intii uu sheegay markii ugu horeysay waxaa sii naaxnaaxiyey suldaan sanyare ama caaqil sanyare hadalkuba intaas inoogu dhan yahay waxaan ta'kiidinayaa oo aan dhiirigelinayaa inaynu u baahan nahay jaamacado tayo leh waa jaamacaddii toddobaad ee laga furo magaalada Laascaanood 5 waa bareefad 2 waa dawi jaamacadda mugaal iyo jaamacadda caafimaadka Soul University labadaasi waa dawi 5 waa bareefad waxaan u baahan nahay in lagu tartamo jaamacadaha oo quality-gooda iyo tayadooda in lagu tartamo wuxuu sheegay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashadu in la adkeeyo qaabka loo soo geliyo jaamacadda iyo shuruudaha looga baahan yahay kulli anigu intaan ka warhayo jaamacadda hadeerta ugu tayada fiican ama ugu kantaroolka adag leh anigoo aan jaamacadaha kale gobolkana ku gafayn ay dhammaantood wada fiican yihiin waa jaamacadda caafimaadka waynu ka warhaynaa dhammaantiin waalidiin baynu wadana jaamacadda caafimaadku kantaroolkeeda iyo shuruudaheedu aad iyo aad iyo aad u adagta beriga horena waxaa la oran jiray iskuullada ama jaamacadaha dawliga ah waxba laguma barto waxaa ka tayaroon kuwa bareefadka ah halkaas way beerowday maanta waxaanu qiraynaa haddaynu reer Laascaanood nahay jaamacadda ugu kantaroolka adag leh inay tahay jaamacadda horumarinta caafimaadka ee Soul University halkaa marka kantaroolku u adkaado waxaa soo baxaysa aqoontii iyo tayadii marka waxaanu u baahan nahay jaamacadda alfa mas'uuliyiinteeda hadday tahay gudoomiyaha guud ee jaamacadda iyo hadday tahay tiimka gobolka ee uu mas'uulka u yahay Dr. Mahdiba inay noqoto jaamacadda kantaroolkeeda iyo tayadeeda iyo shuruudaheeda sida gudoomiye ku-xigeenku sheegay aynu adkayno markaynu intaa adkayno waxaa soo baxaysa arday tayo leh ama aqoon-yahan tayo leh annaga doonay golaha deegaanka degmada Laascaanood cid kasta oo degmada wax ku soo kordhinaysa oo khayr wada waan garab taagina cid kasta oo shar ku wadana waxaan leenahay ilaahay inaga qabto inaguna aynu iska kaashano sida aynu wanaagana uga wada shaqayn lahayn xumaantana meel isaga soo wada jeesan lahayn dhammaantiin waxaanu nahay dad ehel ah dhammaantiin waxaanu nahay dad ehel ah intii maanta hoolka fadhida marka tulliyada guud laga tago haddaynu iswada waraysano dhammaantiin caawimadii faamiliga wada noqonayna dadkeena hintaasi sabab aynu kala caroon u noqono ama sabab aynu uga shaqaynayno meesha ma taalo waxaynu u baahan nahay wixii umusha u danaa ilmahana u danaa la yidhi wanaaggu inagu dawda waryahay dhammaantiin guri kasta oo reer Laascaanood wanaaggaa u dana khayrkaa u dana waxaynu u baahan nahay odayaal aqoon-yahan dhalinyaro inaynu iska kaashano wixii wanaaga ee khayr noo ah inaynu meel uga soo wada jeesano wixii shar nagu ah ka soo horjeeda nolosheena ka soo horjeeda horumarkeena ka soo horjeeda dadnimadeena iyo qiyamkeena sidaa uu sheegay caaqil sanyare khamrigu waa dhibaato aad iyo aad iyo aad ugu badan magaaladeena waxaynu u baahanay in khamriga iska kaashano ciidamada biliiska waa ku ammaanayaa doorka ay ka qaataan khamriga iyo la dagaalankiisa waxaynu u baahan nahay in shacabkuna doorkooda ka qaato qof walba dartiisa oo bilays ka noqdo waxaynu u baahan nahay nabadgelyada inaynu iska kaashano waayo maamul keliya nabadgelyada ma sugi karo haddii aan shacabku kala shaqayn waxaan ka codsanayaa shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood inay nabadgelyada kala shaqeeyaan golaha deegaanka ciidamada ku shaqeeya ilaamaha amniga maamulka gobolka
إلى دولة هير قرن إنه مكون الشغل من نبتقليده وأي هذين نبتقليه جامعة هير منه أقوي هير منه دقال هير منه وحان كعو سنة عند الوكيلها وشعب marka xafladda isku yimaado waxa laga yaabaa in daraas fadhiyo caaqil fadhiyo in qof teetar dowlad ku socda la horeysiyo la ixtiraamo cid ixtiraamka mudan ee aan wariska ee wakiilaha waa shacab waxaan u baahanahay shacabow annagu shaqaalaana maanta nini badiya waa ka tagaynaa wixii intaanu joogno shaqada ku jirna ka xumaadana idinka idin harayaan wixii idin hagaagana idinka idin harayaan waxaan idinka codsanayaa in aad ogaataan in wakiiluhu idinku aad tihiin ninka shirkadiisa wuu ilaashadaa maxay u ilaashan laanahay waxayna guud ah inaga wada dhexeeya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweeyaa jaamacadda Alfa University farceeda magaalada Laascaanood waxaan ilaahay uga baryayaa in jaamacaddiina jeexda ee lagu wajaho in ilaahay ka dhigo wuxuu halkan ka dhawaajiyay caaqil sanyare in beelaha gabooyi talasho badan ay ka jirto inayna tixgelin waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan ku hadlayo afkii golaha deegaanka degmada Laascaanood oo aan farayaa maamulka jaamacadda Alfa University mahadiyo gurkiisa inaanu qaadanay laba arday oo ka soo jeeday beesha gabooyi in aanu bixinayno jaamacaddooda shuruudaha loo marayo misaal kala xiranaysaana waxaa laga rabaa wasaaradda waxbarashada gudoomiyaheeda fadhiyo iyo maamulka jaamacadda anna waxaan ballan qaadayaa labadaa arday markii ay shuruudaha buuxiyaan ee ka soo jeeda beesha gabooyi in aanu jaamacaddooda wixii ku dhaxaya mas-uuliyadooda anigu aan qaado waana bixinaynaa إن شاء الله تعالى آدي آدي بما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.